بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan khayr sharafta leh igala socota halkani waa Sayid Cabdiraxmaan oo idin leh kulanti wanaagsan iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khayaraysa aad ogtihiin dee intiina badan aad daawateen oo aad iyo aad usoo daawateen kadib markii fadeexadu ka dhacday gabadhii Soomaaliyeed ee tagtay waddanka Shiinaha ee ka qayb gashay maaragtay tartanka boqolka mitir ee dumarka jaamacadaha adduunka ayaa halkaas waxaa Soomaalida ka raacday fadeexadii aad iyo aad u weyn haddaba de macnaha saan carabaabay waa wada daawateen intiina badanna waa wadiga aqoon badantihiin hase yeeshee bal waxyaale muhiima aan idinla wadaago oo ku saabsan maaragtay tartanka gabadhan ka qayb gelaysay akhyaaraysa aad ogtihiin tartankan halka waddanka Shiinaha looga qayb gelayay waxa weeye gabadhan waxaa laga diray magaalada Muqdisho waxaana dirtay dowladda Soomaaliyeed waxaana mas'uuliyaddeeda lahaa wasaaradda ciyaaraha ama wasaaradda sportsiga ee dowladda federaalka Soomaaliya wasiir ciyaaraha ama sportska ee dowladda federaalka oo la wareystay ayaa diiday ayaa beeniyay inay wax ogaanshaha ku lahaayeen hase yeeshee waan ka hadli doonaa waxaa jirta inuu gabadha geeyey airportka magaalada Muqdisho agaasimaha guud ee wasaaraddaas gabadha naftigeeda ayaa wareysi looga qaaday airportka iyadoo sheegtay khaladkii koobaad waxaan idin tusayaa macnaha gabadhaasi gashay waxay tiri balwareysiga ku noqdo waxay tiri Shiinaha waxaan uga qayb gelayaa orodka 10 mitir subxaan allah 10 mitir waa halkee waa 30 fiid weeye maxay tahay waa gurigaaga laba jeer waxaan waxba ahayn 10 mitir weeyaan marka koobaad khayray gabadhan gabar professional ma ahayn gabadhan xadgudub baa lagu sameeyey gabadhan aad iyo aad baa wallahi abuse loogu sameeyey saa waxayna aqoon baa loo diray waxayna shaqo ku lahayn baa loo diray bal waan falaaqaynanayo waxaan rabaa markay akhyaaray arrintani soo baxday ayaa waxaa dhacday maaragtay in social mediada Soomaalidu ay aad iyo aad uga hadleen aad iyo aad meel kasta sharaxaad ka bixiyeen oo aad uga warrameen marka anigu waxaan rabay inaan bal ogaado fiidiyowga runta ee maaragtay dowladda Shiinuhu ay telefishinadooda ka keentay marka saacadii ugu dambeeyay waxaan aad u baaray warbaahinta dalka Shiinaha anoo fiirinayo bal fiidiyow run oo maaragtay HD haday hayaan marka bal fiidiyowga waa kan ila daawada marka koowaad halka saad ka aragtaan waa kan labadii gabdhood gabadha caddaanka ee maaragtay midigta ka xigta waddankeeda si fiican uma arko tan kale laakiin Brazil bay ahayd marka maadaama dumarku maaragtay dad muslimaan oo shariicadii diinka jecel balaar baan saaray anaa balaari saaray halka screenka maaragtay idin muuqda marka waxa waaye horta marka koobaad waxa waaye gabadhan horta xijaabka gashan tahay maasha Allah kow gabadhani weligeed leedahay gabadh ciyaar sports ciyaarta ma aha labo sida la sheegay gabadhani waxay lahayd uur khafiif ay ahayd oo bilow ah waanad ka aragtaan aniguna ma jeceli cawrada dumarkii waxayna macnaha saas oo kale shaqadeed ma laakiin arrintani waa fadeexadna gaadhay kolka xaq baynu u leenahay inaynu dhammaanteen maaragtay falanqayno on ka hadalno horta marka waxa weeye marka gabadhani ma aha gabar professional ah khayray maaragtay sports woman maaha athlete maaha wax shaqa ay ciyaaro ku leedahay ma lahan si lagu keenay gabadhan isku duuduubkeedu waa musuqmaasuq marka bal aynu daawano waxay fiidiyowgii maaragtay qaabku u socday waxaad aragtaan hadda iyagii oo maaragtay soo diyaar garoobay oo wada diyaara dhammaantood maaragtay waa kan waa isdiyaarinayaan meeshii ugu horreysay ayaa ay taagan yihiin weli may dhaqaaqin maaragtay gabadha Soomaaliyeed waxay joogtaa lambar 5 bay fadhidaa weli looma yeerin haddaa loogu dhuftay kow foolxumada meeshay ka dhacdo waatan gabadhani saad ka aragtaan khiyaare halkan gabadhani weligeed yaa leeyahay gabadh ciyaar sports orada ma aha gabadh weligeed waxaan ka qayb qaadata ma aha gabadhan xadgudub baa lagu sameeyey iyo bahdil baa lagu sameeyey adduunka lagu fadeexeeyey halkaas crosskii samaynaysa anaa baleeri baa naga saaray waatan meeshay foolxumadu ka dhacday khiyaare waxa weeye gabadhan Soomaaliyeed aad iyo aad ba wallahi I feel sorry wallahi torture baa lagu sameeyey this is torture away habrihii maaragtay sheekh umul haysan jiray xuquuqda dumarka ka sheegay jiray soo maaragtid shaydaamada marka loo baahan yahay imaan maayaan
gabadhan waa in xuquuqdeeda looga qaado nimanka wasaaradda sportska iyo hay'adaha kale ee ku shaqale hadday yihiin hay'ado maaragtay qaab bililqaa u qaatay hay'adihii sportska iyo ciyaaraha ay dowladda Soomaaliya lahayd ama dad kale oo shakhsiyaad ku shaqaystaan hadday jiraan cid kasta oo wasaaradda maaragtay ciyaaraha shaqo ku leh gabadhan xadgudub bay ku sameeyeen meeshan tadii waxa weeye hadduu baarlamaan jiradii waa in maxkamad la keeno arrintani waa musuq maasuq gabadhanna meesha waa ku bahdileen wallahi waana ku ceebeeyeen waxaan oo kale weligeed maynaan arag waxaanay dhaqan Soomaaliyeed ma ahan sharaf ma ahan macnaha waxa weeye waa wax aad u qaab daran marka waxa waaye macnaha gabadhan waa ku ciyaareen wallahi waa ku ciyaareen dad baa eedeynaya gabadhan macnaha hosaadhe gabadhan iyo khiyaare waxa weeye wax alla wax eede leedahay ma lahan dadkii keenay ee meesha keenay waa dambiilayaal dadkaas waa in dowladdu tallaabo ka qaado fiiri mar kale slow motion baa lagu celiyey fiiri shaqo kuma lahaaday dadka kale waa professional athletes weeyaan waa dad macnaha waxa weeye sports ku jira oo maaragtay saa u yaqaan iyadii meel cilaa looga tegey marka waxa weeye videogani waxa weeye akhyaare waa very painful lama daawan karo foolxumadiisa waa aan iskaga tegaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo marka waxa weeye wallahi saan carabaabay waxa waaye macnaha meesha musuq maasuq keliya ma ahan gabadha horta bahdil baa ku dhacay gabadhaas wax eeda ma lahan maaragtay qabiilna arrintan looma nisbayn karo laguma eedeyn karo xusuusta akhyaare waxa weeye qabiil waana xumaan karaa waana ficnaan karaa qabiil wada xun oo wada wanaagsanna ma jiro dhammaanteedna waa macnaha isku wada mid baanahay marka waxaa naga saara waxaas waa camal jaahiliyo iyo wax qaab daran weyn marka hase aynu u soo noqono marka waxa weeye arrinta gabadhan waan isla aragnay macnaha in maaragtay gabadhan bahdil baa lagu sameeyey bahdil aad u weyn baa lagu sameeyey wax qaab daran baa lagu sameeyey waxayna ka bixi karin baa loo diray qarankii Soomaaliyeed baa dhiiqa lagu jiiday maaragtay waxa weeye dee waxaan foolxumayntaas ka weyn nimankan dowladda oo madaxweyne xasan sheekh ugu sarreeya waxa weeye miyaysan dad ficil iyo soomaalinimo iyo dadnimo iyo maaragtay kulayl iyo dad ku jira miyayna macnaha miyaysan jirin maalinkii dhaweydna waan daawatay cajaladii lasoo jarjaray oo ra-iisul wasaaraha la yidhi mayd buu ka sheekeeyey cajaladda iyada naftigeeda waa lagu khaldamay ra-iisul wasaaraha si hadalka loo dhiga maysan ahayn arrin guud buu ka hadlayey dad baa jarjaray waxaan haddee waa Soomaali shaqadeedii weeye waxani hase yeeshee waxa waaye arrintan haddaan ku soo noqonno arrintani waxay ahayd bahdil ku dhacay qaranka Soomaaliyeed marka koowaad waxay ahayd bahdil ku dhacay maaragtay dumarka Soomaaliyeed kaalinta lambar 2 qodobka koowaad bahdil qaranka Soomaaliya ku dhaca weeye qodobka labaadna waxa weeye bahdil iyo fashilaad ku dhacay dumarka Soomaaliyeed marka saddexaadna waxa weeye gabadhan oo si gaara waxa weeye loogu xadgudbay oo loo bahdilay aad baan uga xumay waxa gabadha lagu sameeyey gabadha haddii dhibaato ka soo gaadho xataa waxaa laga yaabaa inay gabadha isdishaa laga yaabaa xanuunka intaa leeg qof bilaadan u dul qaadan kara malaha wallahi aad baan uga xumay marka haddii isla xisaabtan jiro meesha muqdisho la yidhaahdo oo maaragtay dee dowlad innaba damiir Soomaaliya iyo dadnimo leh ay ku jirto meesha waa in lala xisaabtamo dadka keenay gabadh aan maaragtay wax self-prepared samayn aan u soo diyaar garoobin tababar qaadan orod weligeed ordin gabadhan xataa weligeed orode maaha shaqo kula maahan waynu ognahay macnaha soomaalidana dee intaas maaragtay soomaalidu hobtiin soomaalida iyo dadkan kuushka la yidhaahdo ummadahan kale xataa kuwan dadkan kale ee masaayiga ayaa la yidhaahdo soomaalida iyo dadkan orumadiyaa dhalay oo innaga abti u ah waxa weeye waa dad macnaha genetically bay athleteska ayay runninga iyo marathonka ayay kaalinta koowaad ku yihiin marka waxa waaye macnaha gabadhan waxa lagu sameeyey waa bahdilkaasi iyo bahdil Soomaaliyeed waxaasoo dhan haddii meeshan tadii dowlad jirto waa in la soo qabqabto dadkii ficilkaas sameeyey ee qaranka Soomaaliyeed ku bahdilay caalamiga waxaan oo kale wax weligeed macnaha la arkay maahan ma lacag baa lagu cunay hay'adaha sportska jaamacadaha mabaajid baa laga qaatay gabadhan safarkeeda yaa bixiyey gabadhan yaa diyaaradda saaray yaa tigirka soo jaray yaa saahideedii keenay waxaasoo dhan haddii baarlamaan jiro meeshan cadaalada iyo waddan jira hadduu yahay oo dadkani innaba in yaroo damiiriga ku jiro waxa weeye waa in maxkamad la soo taago waa in saxaafadda madaxa bannaan maaragta arrintan loo bandhigo haddii ayna laaluushii wax kala qaadan
ogow nin qofkii suxufiya ee arrin maaragtay shacabka loogu adeegayo shacabka loogu shaqaynayo lacag laaluush ku qaato ogow hadda macnaha xaaraan baad cuntay waana ciqaabna ilaahay agti waa ka mudanaysaa marka dadkii waxaan ka sameeyey waa in arrintan la baadho sida gabadhan siday kaalinta ku timid waxaan facebook ka arkay gabar tiri anaa diyaar u ahaa aniga baa laga qaaday arrintaas dee investigation la samayn karaa marka waxaad moodaa wallahi maaragtay dadkan soomaaliya hadda taladeeda ayaa khiyaaray soomaalinimadii waa ka tallaabeen xadkii dowladnimona waxa weye gebigeeda waa dhinac mareen haddii say xaaladoodu noqon ilaah baa iga garan ilaah baa og subxaana watacaala hase yeeshee anu arrintan waxaan ka arkaa inay tahay arrin aad iyo aad u fool xun oo maaragtay damage iyo dhaawacan weligeedii allahayd ka go-ayn oon hadhayn goorahan in badan oo jiilka soomaaliyada soo koriyeen maskaxdooda ku soo warantay in bahdil qaran loo sameeyey arrintani waa treasonous action waa dembi waxa weye waa khiyaamo qaran weeyaan arrintani waa khiyaamo qaran waa waxa weye khaa'inul wadan waxa carabiga lagu yidhahdo weye waa maaragtay meesha khiyaamaha ka dhacday arrintaasi waa arrin loo baahan yahay in la baadho hay-adaha ku shaqaliya hadday jiraan bahdii haddayna meeshu ahayn maaragtay xela ah nin kasta waxaad soo gaadho boob nin kasta waxaad soo gaadho cun war ku kala yaacay haddayna ahayn arrintaas waa in laga qabto soomaalida damiir kale oo bal idinkuna fikirkiina ka bixiya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu